markale daawadayaal haddaba maxamed cade oo buuggan soo akhriya ayaa khadka ku jira barnaamijkana ila falanqeynaya. maxamed waxaad inoogu bilowdaa muxuu ku saabsan yahay buugga Decoding Iran's Foreign Policy oo uu qoray Ross Harrison? buuggan waxa uu leeyahay dano istiraatiijiyadeed, awood iyo saameyn, waxaana qoray oo sharaxaya Ross Harrison oo ka mid ah waxa uu ku tilmaamayaa waddankan Iran inuu yahay waddan aan caalamka intiisa badan marka ay timaado siyaasadda juqraafiyeedka casriga aan wax badan laga fahmin, iyadoo la leeyahay waddankii waxa uu noqday mid idaacaduhu ay si gurracan uga hadlaan, lagana dhigo mid u hanqaltaagaya inuu hub nuclear samaysto oo cunaqabatayn joogtaa lagu hayo, dad ay diinta madax martay inay madax u yihiin. Harrison qoraalkiisa buuggan uu ka qoray sharaxaadda uu ka bixinay siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Iran aad ayuu u daraasaynayaa, wuxuuna isweydiinayaa su'aalo aad u adag. maxay tahay sababta Iran sidan ay ugu dhaqmayso marka ay timaado arrimaha caalamka? halkii la isku halayn lahaa qiyaas iyo kutirikuteen, qoraagan waxa uu samaynayaa isla xisaabtan istiraatiijiyadeed iyo saameynta ay leeyihiin hogaamiyaasha waddanka Iran, wuxuuna ku doodayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Iran waxaa qaabeeya arrimo isugu jira taariikh, danaha qaranka Iran, tartan xagga gobolka bariga dhexe ka jira, afkaar diimeed oo madhabta shiicada dad aaminsan ayaa waddanka xukuma, iyo walwal xagga amniga ah. buuggaanna waxa uu baaritaan fog ku sameynayaa si uu u fahamsiiyo dadka akhristayaasha ah inay ka fogaadaan faahfaahinta la xiriirta xamaasadda ee si qoto dheer Iran iyo nidaamkeeda dowladnimada loo fiiriyo, iyo sababaha keenaya in Iran ay muddo dheer ayadoo cunaqabatayn in dhib kasta lagu hayo ay weli soo taagan tahay. waa gartay maxay muhiim u tahay in maanta la fahmo siyaasadda arrimaha dibadda ee Iran? Iran ayaa weli waxay tahay mid ka mid ah wadamada ugu saameynta badan gobolka bariga dhexe. waxa weeye waxa ay galgal ku leedahay arrimaha gobolka sida wadamada Ciraaq, Suuriya, Lubnaan, Yaman iyo wadamada gacanka. siyaasadda Iran haddaad ku raaci lahayd iyo haddaad ku diidi lahayd in siyaasadda Iran la fahmo, waxa ay muhiim u tahay dadka siyaasadda sameeya, suxufiyiinta, aqoon-yahanada iyo muwaadiniinta isku dayaya in ay fahmaan xasilooni darrada gobolka bariga dhexe ka jirta. Harrison ayaa xusuusinaya akhristayaasha in siyaasadda caalamka aanan loo fahmi karin oo keliya halku dhegyo, laakiin ay wadamadu siday u dhaqmayaan ay ka imaanayso sababo la xiriirta hadafyo waaweyn oo ay leeyihiin, cabsi jirta iyo khatar waddankaasi ku wajahan. Iran oo cadow ay ku hareeraysan yihiin, sanado badanna cunaqabatayn lagu hayay oo 50 sano ku dhowaad ah, ayaa waxaa loo arkaa badbaadadeeda inay xudun u tahay siyaasaddeeda qaran. marka halkaas laga fiiriyana waxa ay caawinaysaa in la sharaxo sababta Iran ay u dhaqmayso sida ay u dhaqmayso taxadar kale. dhinacyo badan marka laga fiiriyana qaar kale ayaa u arka Iran in ay tahay waddan khatar ku ah. waa gartay qoraaga buuggan Harrison muxuu ka sheegay in Iran ay tahay dowlad mabda ku dhisan ama mid dowlad dan ku shaqaysa? buuggan waxyaabaha uu ku xooga badan yahay waxaa ka mid ah in uu diiday in uu si sahla u fasiro Iran iyo waxyaabaha ku geedaama. Harrison ayaa wuxuu ku doodayaa Iran waa dowlad diimeed sax weeye, laakiin waa dowlad madax furan oo siyaasadda caalamka iyo sidii ola jaan qaadana xoogaal u ah. ilaa intii kacaanka Iran u dhashay kooxaha diinta ayaa saameyn weyn ku yeeshay siyaasadda waddanka Iran. reer galbeedka aragtida ay Iran ka qabaan ayay kasoo horjeedaan kooxahaasi diinta, waxayna taageeraan qadiyadaha ka jira gobolka bariga dhexe oo lagu diidayo caburinta iyo dulmiga. si kastoo ay tahay Harrison ayaa wuxuu ku adkeysanayaa afkaarta diinta ku dhisan
keliya ma aha waxa lagu sharaxi karo Iiraan iyo ficiladeeda. Iiraan ayaa waxay qaadataa go'aamo aqoon ku dhisan oo loogu talagalay in danaha qaranka waddankaas loogu adeego. Tusaale ahaan xulufaysi ayay la leedahay iyo iskaashi diblomaasiyadeed dhinacyo badan. Ma aha oo keliya in ay diin ay la wadaagto iyo caqiido, sidoo kale waxa ay u yihiin dano istiraatiijiyadeed oo faa'iido u ah Iiraan. Harrison sharaxaadiisa Iiraan dhaqankeeda sida wadamo kale oo dhan ay u dhaqmaan oo badan ay u dhaqmaan waxaa haga afkaar, sidaas oo ay tahay xaqiiqada ayaa xakamaysa. Iiraanna waxa laga sheegayo iyo xaqiiqadeedu waa kala duwan yihiin ayuu ku doodayaa qoraagani. waa gartay isla qodobkaasi sidee ayay taariikhda u qaabaysay siyaasadda arrimaha dibadda ee Iiraan? buugga ayaa si xoog leh ugu nuuxnuuxsanaya muhiimadda ay leedahay taariikhda qaabeynaysa Iiraan waxay adduunyada ka qabaan. Waxa uu sharaxayaa taariikhda waddanka Iiraan ha joogtee in hogaamiyaasha Iiraan ay aad u xusuustaan faragelintii wadamo badan oo ajnabi ah Iiraan ay ku sameeyeen, sida ay u nugushahay siyaasad juqraafiyeed ahaan laga soo bilaabo 1953 waxaa Iiraan la afgambiyey ra'iisul wasaarihii sidii dimuqraadiga loo doortay Maxamed Musadeq oo xoogag dibadda ah Maraykanka iyo Britain ay afgambiyeen. Saameyn xoog leh ayay dagaalkii uu ku sameeyey dhex maray Iiraan iyo Ciraaq oo dhaawacyo waaweyn ayuu Iiraan u geystay. khibradaha noocaas oo kale Iiraan soo maray ayaa waxay la timid dhaqan istiraatiijiyadeed oo ku dhisan inayna cidna aaminin, taxadartana. Iiraan waxa ay ka baqaysaa wadamo ajnabiga inay galgal ku yeeshaan, sidaa daraaddeed ayadaa nafteeda isku hadlaysa. saameyn badan ayay ku leedahay wadamada gobolka si ay danteeda u difaacato. Harrison ayaa waxa uu muujinayaa qaramada inta badan ma hilmaamaan wajibigaraxnimada taariikheed ee la soo gudboonaaday. Iiraanta hadda casriga ah dhaqankeeda lagama saari karo taariikhdii ay hore u soo martay ee qaraareed. waxaadna moodaa Iiraan inay tahay dal hadda lugaheeda ku taagan. waa gartay maxay marka Iiraan u taageertaa xulafadeeda iyo kooxaha hubeysan ee gobolka? waxyaabaha aadka la isku haysto waa su'aalaha uu isku dayayo inuu Harrison ka jawaabo. halkii Iiraan howlaha ay ka wado gobolka bariga dhexe lagu gacan sayri lahaa oo lagu tilmaami lahaa inay Iiraan isballaarinayso, waxa uu qoraagani sharxayaa Iiraan in ay wadato istiraatiijiyad maangal ah. Iiraan waxa ay taageertaa xulafadeeda, kuwa dowli ah iyo kuwa aan dowli ahayn, maxaa yeelay waxay u aragtaa in ay cabsigelin ku samayn karaan xoogaga dibadda Iiraan cadowga ku ah. taa beddelkeedii dagaalada Iiraan gudaheeda ka dhici lahaa ayaa ka hortag ayay samaynaysaa. dalkeedana waxa uu raadinaya inuu saameyn ku yeesho meelo ka baxsan xuduudkooda si ay dalkooda u difaacaan oo ay abuuraan wadiiqo istiraatiijiyadeed. Lubnaan, Ciraaq iyo meelo kale Iiraan lug ayay ku leedahay lagu xiriirinayo xisaabaadka amniga qaranka waddanka Iiraan. Harrison cudurdaar uma yeelayo tallaabooyinka ay Iiraan qaado, hase ahaatee wuxuu dhiirigelinayaa akhristayaashu inay fahmaan sababaha keenaya Iiraan inay sidaan u dhaqanto. siyaasad juqraafiyad ahaana qiyaasta la sheegayo inay Iiraan khatar tahay iyo dhaqankeeda waxa go'aaminaya ayada laftirkeeda ayaa khatar lagu hayaa. khatartaas ayay iska gaashaamaysaa ama iska moosaysaa. waa gartay marka buuggani muxuu kaga duwan yahay qoraalo badan oo laga qoray Iiraan? buugaag badan ayaa jirta Iiraan laga qoray, kulligood waxaad moodaa in siyaasad ahaan ay xasaasi yihiin, dhinac ka raran yihiin. laakiin buuggani waxa uu sharaxayaa Iiraan mar kasta lagu sheego in ay tahay dowlad farha laga qaada iyo in ay reer galbeedka iyo siyaasaddiisa kasoo horjeedo iyo saameyntiisa inay arrintu ka fog tahay. Harrison wuxuu ka baaqsanayaa labada dhinacba inuu mid qaato. nidaamka uu wax u qoray waa lafagurid ka fog xamaasad.
mana ammaanayo iiraan shaydaanna kama dhigayo dhab ahaantii waxa uu daraasaynayaa iiraan iyo dowladnimadeeda iyo danaheeda sida u shaqaynayso xilligan lagu jiro bay'ad siyaasi juqraafiyeedku ay dhib badan tahay oo maraykanku uu raba adduunka oo dhan gaar ahaan bariga dhexe inuu asaga gacanta gashto isu dheelitirnaanta oo aragtidiisa u gudbinayo ayaa akhristayaasha waxay helayaan in ay si qoto dheer uga fakeraan iiraan dhankeeda wax ka fiiriyaan suxufiyiinta iyo ardada arrimaha xiriirka caalamiga barta buuggan waxa uu barayaa cashar muhiim ah oo ah inay fahmaan qaran aad loo necab yahay isla markaasna siyaasaddiisa laga soo horjeedo sida uu bay'adaas ugu dhex nool yahay iyo aqoonta inay kaa dalbayso in aad dulqaad yeelato fahamto wax walbana aad ku salayso markhaati ka cad iyo dhinac walba waxa dhabtahayna ka keentid waa gartay marka maxay yihiin casharada uu akhristuhu ka baran karo buuggan wuxuu bixinayaa casharo ka fog waddanka iiraan dadka akhristayaasha wuxuu xusuusinayaa siyaasadda arrimaha dibadda alaaba inta badan laguma saleeyo xamaasad qaramada tallaabo kasta ay qaadayaan waxay noqonaysaa mid lug ku leh taariikhda iyo khibradda ay waddankaasi soo maray cabsida amni uu qabo xaqiiqada dhaqaale waddankaas ku nool yahay iyo istiraatiiji ahaan waddankaas wuxuu u hanqaltaagayo wadamada ama ha yaraadaan ama ha weynaadaan ee nugul inta badan waxa ay ka baran karaan sida iiraan ay isku dayeyso inay u maarayso madax banaanideeda marka laga gudbo in cunaqabatayn iyo cadaadis joogta ah ay ku hayaan wadamada reer galbeedka gaar ahaan waddanka maraykanka iyo xulafadiisa harrison si dadban ayuu dadku wuxuu u barayaa mabaadi'da asaasiga ee siyaasad juqraafiyeedka caalamka jira wadamada inay raadinayaan marka hore siday ku badbaadi lahaayeen marka labaadna sidii lagu baran lahaa waxa ka jira gobolka bariga dhexe Afrika iyo Asia oo la fahmo sida dalalka ay khataraha ay dareemaan ay gacan uga siiyaan inay sharaxaan dhibaatooyinka badan ee maanta caalamka ka jira iyo sida uga dhex dabaalan lahayn waa gartay ugu dambeyntii maxaa ka dhigaya muhiim in la akhriyo buuggan Decoding Iran's Foreign Policy shaki kuma jiro inuu buuggaani mid muhiim yahay cid walba oo xiisaynaysa siyaasadda bariga dhexe diblomaasiyadda bariga dhexe iyo arrimaha caalamka Harrison buuggiisa waxa uu ku siinayaa faahfaahin qoto dheer wuxuu ka baaqsanayaa in uu arrimaha fududeeyo ama ka badbadiyo taa beddelkeeda wuxuu kugu dhiirigelinayaa in aad la fagurto oo ruugto oo aad fahamto xaaladda dhabta ah iyo dhibaatada dhabta ah meesha ay ka jirto xilli lagu jiro macluumaad badan in la gudbiyo iyo propagando iyo sheekooyin xamaasadaysan oo la rabo dooda dadweynaha in lagu jeediyo buuggani waa buug aad muhiim u ah Harrisonna wuxuu dadka xusuusinayaa inay fahmaan siyaasadda caalamka inay u baahan tahay in laga fogaado qiyaas ee la isweydiiyey su'aalo dhib badan Iiraanna inkastoo ay wadamo badan u haystaan waddan qallafsan haddana buuggan markaad akhriso waxaad ogaanaysaa in macno badan aad fahmayso sababta Iiraan ay u dhaqmayso sida ay u dhaqmayso iyo qaabka ay siyaasadeeda arrimaha dibadda u salaysan tahay ugu dambeyntiina buuggan lagu lafagurayo siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan waxa weeye dadaal badan oo lagu bedelayo jahawareerkii iyo propagandadii la afuufayey iyo in aad fahamto lafagurka dhinaca u janjeera ee Iiraan ka dhanka inuuna run ku salaysnayn xaqiiqadana ay tahay Iiraan inay ku taagan tahay jid ay ayada falatay saaxiibadeeda iyo cadowgeeda inay si fiican u kala taqaan